waxay doodi ka dhalatay shakhsiyadda iyo qofka uu yahay maxamed al-juulaani hogaamiyaha kooxda taxriir ashaam ee dalka suuriya. maxamed al-juulaani kooxda uu hogaamiyo ayaa usbuucan qabsaday dhul badan oo suuriya ka tirsan, taasoo mar kale dhalisay hadalhayn, doodo iyo muran ka taagan gudaha iyo dibadda dalka suuriya. tan iyo markii uu maxamed al-juulaani noqday hogaamiyaha koox ay dalalka reer galbeedku iyo qaramada midoobay u aqoonsan yihiin urur argagixiso. maxamed al-juulaani wuxuu hadda hogaamiyaa jabhadda ugu weyn waqooyiga galbeed ee dalka suuriya, waxaana uu maamulaa deegaano ballaaran oo ka tirsan gobolka idlib iyo qaybo ka mid ah gobollada dariska la ah ee xalab, laatiqiya iyo xamaa. haddaba waa kuma maxamed al-juulaani hogaamiyaha kooxda taxriir ashaam? warbixinada laga qoray ninkan way ku kala duwan yihiin magaciisa dhabta ah, taariikhdiisa iyo goobta uu ku dhashay, taariikh nololeedkiisa oo dhammaystiran iyo xitaa dhalashadiisa, taasoo ka dhigan in wax badan oo noloshiisa iyo shakhsiyaddiisa la xiriira ninkani ay qarsoon yihiin. sida laga soo xigtay warbixinada qaramada midoobay, maxamed al-juulaani waxa uu dhashay intii u dhaxaysay 1975 ilaa 1979, halka hay-adda booliiska adduunka Interpol ay sheegtay inuu dhashay 1975. sida uu ku sheegay maxamed al-juulaani waraysi uu siiyey warbaahinta PBS ee dalka Maraykanka, magaciisa dhabta ah waxa uu ku sheegay axmed xuseen al-sharaa. naanaystiisa oo tilmaamaysa buuraha golan ayaa ka turjumaysa xiriirka qoyskiisu la leeyahay gobolkaas. ninkani waxa uu waraysigaasi ku sheegay inuu sanadkii 1982 ku dhashay caasimadda sacuudiga ee al-riyaad, halkaasoo uu aabihii ka ahaa injineer shidaal ilaa sanadkii 1989. sanadkaas qoyska maxamed al-juulaani waxay ku soo noqdeen dalka suuriya, halkaasoo uu ku koray oo uu ku noolaa xaafadda miisa ee dalka suuriya, gaar ahaan magaalada dimashaq. warbixino kale oo ay tebiyeen warbaahinta kala duwan ayaa sheegaya in maxamed al-juulaani uu ku dhashay magaalada darisuur ee dalka suuriya sanadkii 1981, waxaana la sheegay inuu muddo 2 sano ah uu cilmiga caafimaadka ku soo bartay magaalada dimashaq ka hor inta uusan ka tegin sanadkiisii 3aad ee waxbarashada si uu ugu biiro ururka al-qaacida ee ciraaq kadib duulaankii Maraykanka ee dalkaas sanadkii 2003. waxaa la rumaysan yahay inay si xawliga kor ugu kacaysay darajada uu ka gaarayay ururka jihaadiga ah, isagoo noqday saaxiibkii ugu dhowaa ee Abu Muscab al-Sarqaawi, waxaana uu u guuray Lubnaan sanadkii 2006 kadib markii la dilay Sarqaawi, halkaasoo sida la sheegay uu kormeerayay tababarka kooxda jundi al-shaam ee dalka Lubnaan. waxaa la rumaysan yahay inuu mar kale u safray dalka ciraaq, halkaas oo ay ku xireen ciidamada Maraykanka in muddo ah, wuxuuna ku biiray kadib ciidamada islaamiga ee ciraaq kadib markii la sii daayay sanadkii 2008. sida ay sheegeen dadka wax indha-indheeya, maxamed al-juulaani waxa uu dib ugu laabtay dalkiisii suuriya bishii Agosto ee sanadkii 2011, halkaasoo uu ka asaasay laan ka mid ah al-qaacida si ay ugu biirto dagaalka ka dhanka ah madaxweynaha suuriya bashaar al-asad. wargeyska Lubnaan ee la yidhaahdo as-safiir ayaa tilmaamay in dadka qaar oo garanaya ay yidhaahdeen waa ciraaqi, waxaana loogu yeeri jiray al-juulaani iyadoo la tix raacayo xaafadda al-juulaan ee falluuja oo uu ka yimid. markii uu qabtay hoggaanka al-nusra, hay-adda cilmi baarista ee kulyan ayaa sheegtay in al-juulaani uu waayo aragnimo u leeyahay ciraaq, taasoo ka dhigaysa hoggaankiisa jabhadda al-nusra mid aan muran la gelin karin. waxay warbixintu kaloo sheegtay in tafaasiisha al-juulaani si adag loo ilaaliyo oo inta badan xubnaha jabhadda al-nusra aanay garanayn hoggaamiyahooda. maxamed al-juulaani waxa uu caan ku noqday dalka ciraaq xilligii uu joogay dalkaas, waxaana gacanta ku hayay Abu Muscab al-Sarqaawi oo ahaa asaasihii al-qaacidada ciraaq, halkaasoo uu door muhiima ka qaatay fududaynta howlgallada xuduudaha isaga gudba
isagoo asal ahaan ka soo jeeda suuriya. wuxuuna isku xirayey al-juulaani dagaalyahanada ajnabiga ah iyo fallaagada gudaha ee qaadayay weerarada iyo howlgallada istiraatiijiga ah. sanadkii 2010 ayay al-juulaani ciidamadii maraykanka ee ciraaq joogay xireen. muddadaas waxaana sii xoogaysanayay xiriirka al-juulaani uu la lahaa shabakadaha jihaadoonka oo ay ku jireen hogaamiyaashii dowladda islaamiga ISIS. waxaanu markaas dhowr sano ku soo qaatay xabsiyada ciidamada maraykanka. markii kacdoonka suuriya uu isku bedelay dagaal hubaysan sanadkii 2011 al-juulaani ayaa dib ugu laabtay dalka suuriya isagoo uu la shaqaynayay hogaamiyihii daacish abubakar al-baqdaadi si uu u asaaso laanta suuriya, halkaas oo uu ku asaasay jabhadda al-nusra bishii January sanadkii 2012. laakiin markii hogaamiyihii dowladda islaamiga ee ciraaq abubakar al-baqdaadi uu ku dhawaaqay inay ku biireen jabhadda al-nusra sanadkii 2013, maxamed al-juulaani waa uu diiday, wuxuuna ballan qaaday inuu daacad u yahay hogaamiyaha al-qaacida ayman al-dawaahiri. bishii luulyo 2016 maxamed al-juulaani ayaa ku dhawaaqay in kooxdiisa ay xiriirka u jirtay al-qaacida, wixii hadda ka dambeeyana loogu yeeri doono jabhadda faatix al-shaam. sanadkii 2017 kooxdu waxay dib u habeyn ku samaysay xayaat al-taxriir al-shaam oo ahayd isbahaysi ka kooban kooxo islaamiyiina oo uu hogaaminayay maxamed al-juulaani, iyadoo la ilaalinayay fikradda islaamiyiinta mayalka adag. kooxdu waxay rabtay inay soo bandhigto sawir waaqici ah oo diiradda lagu saarayo maamulka maxalliga ah iyo diblomaasiyadda halkii ay ka ahaan lahayd jihaadka xuduudaha isaga gudba. sanadkii 2021 maxamed al-juulaani ayaa u sheegay warbaahinta PBS inuu ka tegay hadafkii al-qaacida ee jihaadka caalamiga, haddana uu diiradda saarayo oo keliya sidii uu xukunka uga tuuri lahaa madaxweyne bashaar al-asad iyo sidii uu xukun islaamiga uga hirgelin lahaa dalka suuriya. habka hogaamineed ee maxamed al-juulaani waxaa lagu gartaa inuu la qabsan karo duruufaha markaasi jira. markii hore waxa ay salka ku haysay fikradda al-qaacida, laakiin wuxuu si tartiib ugu dhaqaaqay qorshe maxalli ah oo dheeraad ah. isagoo ah hogaamiyaha taxriir al-shaam, maxamed al-juulaani waxa uu saameyn weyn ku yeeshay idlib oo ah meesha ugu dambaysa ee mucaaradka ugu weyn suuriya. maxamed al-juulaani waxa uu caddeeyey inuu awood u leeyahay inuu isu dheelitiro howlgallada militari, gorgortanka diblomaasiyadeed iyo maamulka maxalliga ah. sanadihii lasoo dhaafay warbixino dhowr ah ayaa soo baxayay oo ku saabsan geerida maxamed al-juulaani, laakiin dhammaan waxaa la xaqiijiyey warbixinahaasi inay been ahaayeen. isagoo ah hogaamiyaha jabhadda hadda qabsatay inta badan suuriya, maxamed al-juulaani waxa uu damcay inuu dib isu celiyey sidii hogaamiye rayid ah, isagoo isku dayay inuu iska fogeeyo sawirka la xiriira argagixisada caalamiga ah. iyadoo ay jiraan dadaaladaas, dowladda maraykanka waxa ay ku tilmaantay maxamed al-juulaani inuu yahay argagixiso, iyadoo abaalmarin dhan $10 milyan ku bixinaysa xog kasta oo horseedaysa in lasoo qabto, iyadoo la tix raacayo xiriirkii hore uu la lahaa al-qaacida.